diintan ilaahay nooma siinin kaliya inay aakhira manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiraan ku dhargno ku libaano marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamacii waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahabaa markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iska leh iga qaado waxaan ma lihi anigu ye lacagta intan leegn anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war ma lihiye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaadda zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna mu odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi bal fiirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasee dee anna kaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. النبي يقول عليه الصلاة والسلام ورياض أبو نبي محمد بن ليه دقيستا بني آدم وصلت با كجرتا هدي هاجاكتو جركو دم با هاجاجي هدي باناتنا جركو دم با بانانو حمان تاسنا وقلبك أبو رسولك يدي قلبك أنا وحك لما هاجاجيان قلبك لعاق ما هاجاجسو قلبك وحك كليه هاجاجيا وأمرك يجرت إلهي معرفة ديسو معرفة الله. عثمان بن عفان الله رالي كان نقضي الضوميه سي الضون كميدو وياري مالين وعود العقد انقاد أبو ذر الغفاري وقي هدو العقد أبو ذر هدو العقد كاقاتنا حربات هاي بكير حر وانكو حري أبو ذر نمركا مقالة مدينة دبددو دقنان ريب دم الليلة وعثمان بن عفان باكود هلكا أقول رضيقو وأيوة نين زاهد أبوها قرني نبي قد موداينو جوغا يسوقو دات كان تابعين تا الدين تقصو قدال دم بكيمي دي الدوية دي لي مادين ودن ونفين يا يسوقو دركي نبي محمد وكاكد تيبو ستاولي عريشك نبي محمد وكو أغانا وقلا عنتدي عهدي نبي قو نبي قال لعنا ولي وعنا يسوقو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacag diidi kara soo salaama hinde manin baa lacag diidaya haska jecelahay oo yimiday oo salaamay wuxuu amiirkii muuminiinta Uthman baan salaankaaga sida waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yiri lacagtana uu soo dhiibo wuxuu yiri Abu Dar u geel lacagtaas markaasuu maxaan ka dhigaa wuxuu de haw kaalmeystay adduunyadiisa markaasuu yiri u celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay cidaasi ka dhabu yiri inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa iga daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ihay cid kale wax ima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaga laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunyo ma markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ay runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu Abu Dar lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada han ka baxe i xoreeyo lacagtan iga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu iga qaado oo ina xariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi Abu Dar dhegayso hadalku ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anu addoon xor aan ahay buu xor bas yaabay ninkii lacagta isagoo wada Cusmaan u keenay wuxuu waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta ka qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dar al-Ghifari lacagta daliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyada maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyagu adduunyada iyaga fuushana innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni waqti ku bixiyay bay culimadu leeyihiin waqti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tageen bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada
كشقيسان لقمله كشقيسو حلال مرد نقو لكن وحاد وقعتا الدنيا وبلاغ آخر كوجاد مويانه إيده هكذا هدف كاجي آخر ذي نكالو وينان وعن حسوس مالين سنة كي هرانو مالين بشي نوفمبر بشي دي ديارات بانكر رعنا جيبوتي وحنو سعنا دي سببا توبي ايرلاينز بالما ديارات دار راعي دونو مدة شان بلو لغا جوغنا ديارات باكو دعدا توبي دحديدو بقول يو كنتم قف اكو قد باشي بعد ما قشي منو مالين يا بقول يو دوري صدق در دبينا لا فديستay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baa sii wadanay ila addiis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way girirtay markaa kursigan aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ay fadhiya diyaaraddii way girirtay markaa quraan kan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daradeed markaas aan ku yiri la ilaaha illa allah markaas uu yiri igu cali way girirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan la ilaaha illa allah markaas la ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi wa qisa ajiiba markaasaan ayaan ku iri maxaad la cabsoon baan ku iri odayadaaba hamay cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culimo reer Djibouti bay ahaayeen ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo ku marka kursiga dusheeda iska khoorinayaan markaasaan ku iri kuwa hamay cabsoonayaan adoo maxaa la cabsoon wuxuu iri kuwaasi way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu iri kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu yiri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu yiri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyan ku jira waxa markaa wuxuu yiri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaaman doonayaa buu yiri hadalkii hadana socday girirta diyaaradii markaas hadana lugtii qabsaday war isiida la ilaaha illa allah markaas iga dabeeyo la ilaaha illa allah diyaaradii markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamtaa wuxuu islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdeeda ku dhex guuraysaa buu yiri waanan arkay buu dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu yiri rag badan oo ganacsato muslimiinana saaxiib aan lahayn buu yiri marka ii soo duceeyay buu culamadan ay ugu sheegay ii soo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu yiri hadalku halka noo maray marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuustay marka aayadaas وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة هذاك مركي كنت مع دبا إلهي كوا قال ذا حاجة أصور ذا حاجة إلهي فرعون مركي لقب تبع آيات لا تصبع نبي موسى صور تجربة لي وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل سقال آيات با إلهي فرعون وتصي آياتك وحا كمدها الضوفان با لتصي ديك با لتصي أيح با لتصي إنجر با لقصة لدي آيات كستمركي لتصوى فرعون وحق موسى أي دقيهن مركو كسوا يبع وعير هذا النبي موسى إنه الشيقع حدي لنا قاد عقوبة ناس وحن كبال لنقادنا إلهينا الرومين موسى أن راعي ريب بني إسرائيل عذاب كان كدين فرعون موسى الله يمدان فرعون ساس وليه مرقاس النبي موسى إلهي ببريا بلا يدي با فرعون لقى قاد عقوبة دي مرة اللي مرقع عقوبة لقى قاد فرعون وحو ليه حي سحر بوها وحو نبو قبتي لا إله إلا الله ما أنت فرعون لقبت إلهي بكو أردايي إنا كان كورما ما أنت لأن قبت حقان وردنا زمن كان أوار بعد عضي إلهي نوما كان أمين هذا حقان لو غيلا دان درتا يا ده لو سو قرمدا هيدا سما فلكا
hay-adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga, hay-adda cilmi baadhista saadaasha hawada, idaacaddu soo fadhiisan faaliye jaamiciya oo dibloom sita, waxaa lagu leeyahay ninkani waa master buu sitaa, haye waxa uu ka faalloodaa hawada iyo cimilada ayuu wax ka barto wax ka sheegaa, markaa buu odhanaya isniinta soo socda roob baa da'aya alaabta urursada. laa ilaaha ila allah, quluu laa ilaaha ila allah. hay-adda caafimaadka adduunka waxaa ka odhan xanuun caalami adduunka yimidee sanka iyo gacmaha xidha. man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu mima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed. faaliye iyo fooxle buu nebigu yidhi labadaa ninka la fadhiista ee waxay sheegayaan wax ka rumaysta buu nebigu yidhi shareecaddii aniga igu soo degtay ninkaas waa ka galo buu rasuulku yidhi. faaliyihii aad taqaanay mahayna faaliye casriya soo baxay. iimaankaaga ilaalsho, laa ilaaha ila allah ilaalsho. hayb waxa iman doonee soo socda ilaahay maana cid kale ma taqaano. ina allaha cindahu cilmu الsaaca wayunazilu اlghayth wayaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsu maada taksibu gadan wma tadri nafsu biأyi ardin tamuut ina allaha caliimun khabiir. saacadda qiyaamadu markay dhacayso ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano. roobku markuu da'ayana alla mooye cid kale ma taqaano. caloosha waxaa ku jira ma dakar baa mise waa untaa, ma lab baa mise waa dhidig, ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano. aduu halka aad baritoola waxaad kasbani doontidna ma ogid, halkaad ku dhimanaysana ma taqaanin. mid baa baryahan dhakhtarada aalaad casriya la helay moogtahay oo ay leeyihiin waana wax jira aqoon la gaadhay way dhici kartaa ma inkirayno, laakiin waxna waa run bay noqotaa marmarna been bay noqotaa. islaantii 7 bilooda la saaraya ekooga iskaankaa la saaraya kombyuutarka waxaa leeyahay gabadh islaanta gabadha wiil bay ku sidaa. mid baa lagu yidhi 7 bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa, haddana 8 bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa, 9 bilood markay madaxa la gashaan loo saaray wiil bay sidaa. maalintay dhashaan laga yidhi gabadh bay ku dhashay. u dagaalamayba wuxuu yidhi islaantaydu wiil bay sidee halkaas soo dhiga waad ii badisheynaya. waar waxba laguma bedelin yaa miskiin. aaladan bini aadam baa sameeyey 100% run ma sheegayso. aaladan bini aadam baa sameeyey 100% run ma sheegayso. horumar baa la gaadhay maaha. masaa'ibtii bini aadamka masaa'ibtii u qarsooneyd baa bannaanka maanta loo soo dhigay caalamka. isagoo qofkii oo nool ayuu nolosha ku dhintay qofku. markii la yidhi dhiikar baad leedahay oo sokor baad leedahay oo macaan baad leedahay oo subag baad leedahay oo kansar baad leedahay uuba dhintayba. isagoo nool buu qofku dhintayba. berigii horena hee aalaadkan maanta wax iktishaafaya ee teknolojiga aan ku sheegayno ma jirayn. qofku uu iska noolaan jiray, uu iska bukoon jiray, uu iska sakaraadi jiray, uu iska dhimani jiray. ma tahay mise maaha? walaa macaan buu ka baqaa walaa subag buu ka baqaa. mid baa la sheegaya qurbaha la geeyo wadannada Maraykanka marka lagu tuuro Soomaalida markaaba dhakhtar baa la geeyaa waa la check-gareeyaa, check-up baa lagu sameeyaa. markaasaa la yidhi oo dhakhtarkii uu yaabay cholesterol baad leedahay. markaasuu war muxuu yidhi ii sheega. markaasaa la subag baad leedahay subag badan. markaasuu alxamdulillah marba haddaad dufan lahay buu yidhi. waar waddan waxaan haysanay dadku tabiica ku nool yihiin oo iska noolaanayaan oo hadday bukoodaana sadaqada bixinayaan oo ilaahay ay baryayaan oo quraanka isku daweynayaan. nin dhan baad arkaysa masjidka sare kaco ku odhanaya waar maalmahan waa yar xanuunsanaya faatixada hal ii maro ilaahay ducada muslimiinta buu aqbalaa. horumar baa la gaadhay. horumar lama gaadhine masaa'ibtii jirtay qarsooneyd baa bannaanka lagugu soo saaray maanta. dadka iyakoo nool ayay qalbiga ruuxaaniyan iyo moraaliyan wayba dhisan yihiin dadku maanta. fanarjac ila allah, ilaahay baan u noqonaynaa. koonkan ilaahay baa ka taliya. waxa soo socda ilaahay maana cid kale ma ogo. wixii ilaahay qadaray ma in adduunka wax kale kama dhacayaan. ilaahay ku xidhnow yaan xadhiga ilaahay lagaa jarin. sheekha yidhi gaaladu barigoor waxay nagu soo qaadeen ghazwa alfikr, maskaxday nagaga soo duuleen. hadda baryahan waxaa bilaabmay ghazwa alcaqiida, in qofka caqiidadiisa iyo iimaankiisa lagala dagaalamo. aaminaadii ilaahay aad ku kalsoonayd eed qur-aanka aaminsanayd eed ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamkiisa aad ku xidhnayd ayaa la rabaa in lagaa gooyo
daadna lagugu xidha nidaamka iyaku ay samaysteen marka waa inaad tiraahdaa yaa sheekh annaku muslimiin baan nahay isku aragti ma nahay isku aragti ma nihin insha allah dhahada qulu insha allah dhahada xaajadeena baahideena yaanu sheeganaynaa allah ubadkeena ilaahay baan baraynaa ubadkeena quraankaan baraynaa haweenkeena asturka ayaan baraynaa dadka muslimiintu waa walaalo waxa walaalo ka dhigtay waa laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah wanaagaan ummadda ugu yeedhana wanaaga waa maxay wixii shariicadda islaamku ay ku fartay waa wax adiga maslaxad ku ah runta sheeg bay ku leedahay maslaxaddu runta dadkoo dhan baa kugu jeclaan beentana dadkoo dhan baa kugu neceb ballanta buuxi bay shariicadda islaamku ku leedahay ballantana ha buuxin bay ballantana ha jabin oo ballan baajiyaha noqon bay ku leedahay qofka ballanta buuxiya dadkoo dhan baa jecel qofka ballan baajiyahana dadkoo dhan baa neceb shariicadda islaamku waxay ku leedahay ammaano qof la noqo haddaad ammaano xaafid noqoto dadkoo dhan baa ku jeclaani haddaad laakiin aad noqoto khaayin hooyadaa iyo aabbahaa wayse kaa ilaalinayaan wanaagay shariicadda islaamku kugu yeedhayso waa waxa dadnimada kaaga dhigaya dadka kugu dhexdaraya qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof kaa dhigaysee qabiil iyo aqoontan maadiga iyo dhaqaalaha aad haysatid kaa dhigi maayo dad ogow diinta islaamka wanaagay kugu yeedhaysa ayaa dad ku noqonaysa fanatacalam diinteenaan baranaynaa diinteenna ummadkeenna baraynaa raggeenna waaweyne diinta ilaah baan ka shaqaynaynaa war maxaa ka shaqaynaa diintaan ka shaqaynaynaa ayaa u daaray diinteenu ka shaqeeyo wallaahi diintu shaqay u baahan tahay maanta shaqo habeen saddexaad baan hawdkaan u baxnay meel gaashaamo la yidhaha baan tagnay 4 cishaan ku maqnay duhur magaalaan marnay casr tuulaan marnay tuulaan maalin baad duhur la tukan dadka aan la hadlaynin salaada inta imanaysa iyo inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa salaada aan u soo kacayn 80% baa ku qiyaasay salaadii عمود الإسلام ودبدحاتي دين الإسلام كان مانتا مجتمعين كون دح ضيعان ومدو مركا فرد وما بهنا مانتا صعد بأو بهانتا حيو بهانتا صعد سيدات كبت بادي سادق يوم مدى كبت بادي لعيد واد ذلك الدعوة دوية واد اللي يردين وضيدين عامدين علمدين وأنا نقعمين تونس قبسنا الدين تدالك إنه وضكعنا يا ودي ردين استغفار با إلهي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفارتها كتجن بالله يري إله أدبر يسا نر والبعد نقنيسا حقيسا والله دافد بدن ونحريس بدن ويان أدعوني أستجب لكم با إلهي يري بيديس أنيقو إبريا أنيقو نواني نقا أجيب يا دعاء ديني لئن شكرتم لأزيدنكم هذا نعمت إذا يقول شكر دان با إلهي يري أنيقو نواني بيرنيا dembiilaataho mar walba dembi uu kaa soo dhacaya marka istighfaarta ha ka tagin mar walba waxaa tahay mid baahan baahidaada ilaahay u sheego ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalee ducada ilaahay aqbalo ee axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam nebigu noogu sheegay xilliga ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaada markii laga baxa ducada waa la aqbalaa roobku markuu da'ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacata ijaaba ku jirta habeen walba waxa uu nabigu noo sheegay inay ku jirto saacad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada aqbalayo uu leeyahay ayaa waxay weydiisanaya hansiiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa maaragtaanee dembi dhaaf doonay dembigiisa han dhaafe saacadaha kaco ilaahay la munaajoyo baahidaada ilaahay u sheego aqrab maa yakuuna alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun faakhiru fiihi adducaa فقيمن أن يستجاب لكم النبي عليه الصلاة والسلام مركو أدونك إلهي سوغو دواشة بدن يحي ومركو سجود وجهك ودولك وكوحيه حلق دعاء بدي أبو النبي عليه الصلاة والسلام وها حقيقة أبو النبي يا حلق أنك دعايستا إلهي دعاء سينو أقبله ولا لك مسلمك وأنك ورقب ودو دعايسا بظهر الغيب أدو دعايسا ودي لها إيمان ويديسا هداية إلهي ويديسا توفيق إلهي ويديسا برواق إلهي أدو ويديسا عافماد إلهي أدو ويديسا تاسانا أبو إجابة دوب النبي عليه الصلاة والسلام أدو ولالك مسلم كأنور كاقب المركة دو دعينيسو
korkaaga malag baa taagan mar allii markaad walaalkaa u ducaysidba walaka miluhu malagii wuxuu ku leeyahay aamiin ilaahu ducada aqbal walaka miluhu adiguna waxaad walaalkaa aad u tidhi adigana annakaa ku nidhiya aamiindha buu ku leeyahay malagu ducadaadaas adiga in la aqbalaya ilaahay baa garan laakiin ducada malagu waa mustajaabo weeyaan markaad walaalkaaga muslimka isagoon kaa warqabin aad u ducaysid waxaad walaalkaa ilaahay aad u weydiisid adigana malag baa ducada tun lamida kula dul taagan oo ilaahay kuu baryaaya tadcuunii astajib lakum ibarya baa ilaahay ku leeyahay ducadiinna waan aqbalaya marka ducana ta ugu fadli badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa inaad tidhaahdid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa lahaa xadiis alqudsi in aadan u aflagaadeeyey uuna idhibayaa in aadan wuxuu igu dhibayaa markuu yidhi ilaahay wiil buu yeeshay ilaahay waxau leeyahay anuu wiil ma lihi oo ma dhalin laymana dhalo mana dhalo keli baan ahay keli ina aadan baa ilaahay leeyahay wuu aflagaadeeyey waa i aflagaaday wuxuu igu aflagaadaynayaa yasubu dahra wa ana dahru alamru biyadii uqallibu leyla waannahaara ina aadan habeenka iyo maalinkuu aflagaadaynayaa oo zamanka ayuu caayayaa zamankuna baa ilaahay yidhi waa aniga habeenka iyo maalinta anigaaba bedelayo anaa keenaya baa ilaahay yidhi zamanka sidee dadku maanta u aflagaadeeyaan maxaa sidan kuu galay wakhtigaa sidan ii galay ma yidhahdin war ma yidhahdin maxaa sidan kuu galay wakhtiga halkaa i dhigay wakhtiga iga jeestay buu ku odhan wakhtiga iga jeestay wakhtigaa sidaa ay baday wakhtigaa iga xun wakhtigaan fahmi lahay wakhtigu muxuu yahay ilaahay baa kule yasubu dahra wa ana dahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadayn oo leeyahy zamankaa iga xun zamankaa xun zamankiibaa iga jeestay wakhtigiibaa iga jeestay wakhtigiibaa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leeyahy zamanku waa aniga amarka gacantayduu ku jiraa habeenka iyo maalinta anigaaba bedelaya oo keenaya amarkuna gacantayduu ku jiraa kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaada cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso kaan madax ka dhigana cid madaxnimada ka qaadi kari mayso kaan cizeeyana cid ma dullayn karayso kaan dulleeyana cid ma cizayn karayso kaan hadeeyana cid ma weecin karayso kaan halleeyana cid ma hanuunin karayso kaan anigu aan khayr aan siiyana cid shar u keeni kari mayso amarka ayaa leh allah baa leh waxba zamanka ha aflagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha odhan hebel baa halkaa ii galay buu yidhi maalin mid dee iska soo saar hebel baan magaalada ka mari hebel baan magaaladii u daayay buu yidhi haye hebel baa nolosheeda ka xun hebel baa halkaa ii dhigo sidaa ii galay zamanka adiga kula haya dee anna zamankaa sidaa ii galay buu ka odhan may sidaa ma aha qofka muuminka iimaanka la waa inuu umuuraha waa inuu idhahdaa hadday dhibi ku dhacdana waa inuu idhahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan oo adduunka laygaga goynayaa hadday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa kuu qadaray haddii walaalka ilaahay u nicmeeyana waxaad tidhahdaa nicmadda ilaahay kuu nicmeeyey hanii'an laka waan kuu haneeyey hadday walaalkaa balaayo ee masiiba ku dhacdana waa la tacsiidayaayo waxaa la yidhaahdaa insha allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aaminaa zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqo la yeelo abu darda iyo salmaan qiso dhex martay baan nii sheegi salmaan farisi buu ahaa radia allaahu canhu wuxuu damcay markaa inuu guursado abu dardaayo markaa uu nebigu walaala uu ka dhigo walaaleeyey ukhuwat alislaam ayuu ku yidhi abu dardaayo reerkaa gabdho fiican bay leeyihiine gabadh orodoo iiga doon waa hagaag markaa dibadduu ku sugayaa aqalku aqal weyn maaha waa aqal yaroo cariisha
abu dardaa baa aqalkii soo galo waa la soo dhaweeyey oo qoys markaa yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan ilaahay siiyey marka abu dardaa baa yidhi waxaan inantiina heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay salmaan alfarisi baan u rabaa markaa bay yidhahdeen salmaan inantayada siini mayne laakiin adigaan ku siinay ku yidhahdeen gabadha weligeedii mar hadduu ku yidhahdo waan ku siiyey uu ku siiyey ogow khalaas waa xaaskaagii laanna waa saddexda nebigu yidhi saddex kaftankooguna waa dhab dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nebiga ku salliya inantaydii waan ku siiyeyna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas والعياذ بالله دينته وان كبخي قفك haduu iraadana waa ka baxay ogow والعياذ بالله marka abu darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyay sidoo ugu sheegay walaalkii saaxiibkii Salman uu sugaya Salman oo isna aroos isku diyaariyay arooskooguna bariga maba adkayna gabadha intoo la isa siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba uu aqal galayay waxayna lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo hoteelada iyo buuraha la iskala dhacay ma macsiyada lagu dhisay maaha nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisayay ayagoo masjidka ka soo wada baxo isgarab socdo nabigu ku yiri cali ka waran faatima hadaan ku dhiso markaa uu sii jeesto uu ka xishooday faatima waan ku siiyay buudi aroosna waa taysa soo diyaari buu ka yiri oo socday inantiisii buu nabigu u tagay faatima aabo waan ku dhisay yaad ii dhistay cali baan ku dhisay radiyallahu anha way amustay way xishootay markaa bay hadasho aaba ma hadal buu ka yiri cali baad ii dhistay ha cali yar calul buuran yahay haye habeenoodna uu leeyahay habeenkii indhaha aad wax uga ma arkay ku tiri markaa buu nabigu ku yiri faatima laqad zawajtuki وإنه لأقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما بكيري فاطمة إنك أنكو قريي وأنك إسلام نمضى أمد يدو صهر إسلامي وأنا إنك أمد يدو علم بدن وأنا إنك أمد يدو دلقات بدن برسول كيري بركنت أنا قادو قديفة أنا قادو ويل كان بيها كل عن صدق عاون وكوهين يا ديار جروب وكيدي نقول إمك قبلها وحبكم ما درناه حوما كسبنا سوما تبادن سومالي مركي لسه ويل كي خرج كبادن كبحيان نبي يقول إن أنتي سي فاطمة مركو لسه يقول راعي بركين بوسيي جوجل بوسيي ويل بوسيي بركا جورك وفضوا ذا كان زمن كان عذاب كان معها فضوضا نولش way fududay guurka hadii la fudaydiyay bay culimadu leeyihiin zinada inay dhalinyaradu ku dhacdo ayaa adkaan hadii guurka la adkeeyo waxa la fududeeyay ogow zinadii baa la fududeeyay marka guurka inaan fudaydina diyaar ma unahay waa sababta kaliya bay culimadu leeyihiin fasaadkan kula dagaalami karno guurkana la badiyo in la fudaydiyo walibana Salman Farisi banaanku taagan yahay walaalkii Abu Darda ayuu sugayaa أبو درداء بصواب حي مركز سلمان بعدي بشارة وعروحي ماشى كدعي إنا كاجور رموا كحشونة يا بيودي وراح حشونة أي شيء ما اللي يلي مسوى اللي يديدي ونيو قبادي أدي ولا جود ديدي لكن أنا اللي يسوي عروسة بيودي أنا بعروسة بقى مركز قصلي وحوري كحشونة أدي ما هي وأنا قبل وايو علف إلهي أدي وكوقري علف كاجي samada lagaaga qoray iyo adigan anuna dhex socday buuri ka xishoon adiga ma habud waa aniga ee walaal adigan Allah ku barakeeyo zamankan arinta ma dhici lahayd wala isku rogman laha Soomaa waa adii dhigtay ayagu waxa la baray waradeer amar Ilaahay baa adduunka socda wixii Ilaahay qadarin baa adduunka ka dhici wax kale ka dhici maayo marka zamanka ayaan waxba aflagaadaynin zamankan nidaamka zamankan waa nidaam Ilaahay xaqiisa ka socda
ilaahay xidhiidh fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyihin nolosha waan fahmi la'nahay nolosha waxaan u fahmi la'nahay waa maxay xidhiidhkii innakii ilaahay noo dhexeeyey baa meesha ka baxay xidhiidhka haddaan hagaajisanno nolosha adduunkan iyo taakhiro ilaahay baa noo hagaajin ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegoo yidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umuurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd